xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daqiiqado ka hor waxay gaareen magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka Jubbaland kuwaas oo dawladda dhexe ku matala maamulkaasi waxa hadda si toos ah magaaladaas uga soconaya kulamo madaxda maamulkaasi ay la yeelanayaan xildhibaanada labada aqal ee halkaasi gaaray garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ayaa xildhibaanada si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo kadibna loo dhaadhiciyay aqalka madaxtooyada kulamada ayaa diiradda lagu saarayaa siyaasadda iyo sidoo kale guud ahaanba sidii xal looga gaari lahaa doorashada maamulka Jubbaland oo lagu wado in dhamaadka sanadkan magaalada Kismaayo ay ka qabsoonto Axmed Madoobe ujeedka ugu weyn ee kale yahay isla markaana xildhibaanada ugu yeeray magaalada Kismaayo waxa ay tahay sidii guud ahaanba ay taageero rasmi ah ugu muujin lahaayeen in doorasho isaga uu maamulo si iskiisa u qabto xildhibaanada maanta gaaray ayaa ah kuwii ugu badnaa ee halkaasi taga waxaana lagu wadaa in kulanka ay yeelanayaan Axmed Madoobe sidoo kale xildhibaanada labada aqal ee deegaanadaasi ku matala Jubbaland in ay soo saaraan war rasmi ah isla markaana ay ku garab taagnaan doonaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo markii afraad qorsheynaya inuu ku soo laabto kursiga madaxtinimada Jubbaland Madoobe waxa uu ku guuleystay in xildhibaanada isugu geeyo magaalada Kismaayo ee Jubbaland isla markaana taasi waxay dhabarjab u noqonaysaa dawladda Xasan Sheekh madaxweyne Xasan waxa uu markii hore ku fikirayay in xildhibaanada Jubbaland aysan aadi doonin waxaana maalmihii u dambeeyay soconayay kulamo xildhibaanada ay la yeelanayaan madaxda ugu sareysa dalka si guud ahaanba loo baajiyo shirka balse Madoobe ayaa isagu guud ahaanba waxa uu meesha ka saaray rajadii Xasan Sheekh iyo sidoo kale tan Xamza oo ahayd in xildhibaanada la kala jabiyo oo badankood aysan meesha aadin waa sidii hore u dhacday madaxweynaha maamulka ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kadib markii xildhibaanada labada aqal ku matala deegaanadiisa uu ka dalbaday in ay tagaan magaalada Garowe kuwaas oo si cad u sheegay in shirka aysan ka qayb gali doonin balse Axmed Madoobe ayaa isagu waxa ay ka dhabeeyeen xildhibaanada deegaanadiisa ku matala in guud ahaanba si rasmi ah halkaas ay u tagaan isla markaana kulamo wada tashi u la yeesho Madoobe kulamadan kadib waxa la sheegayaa in uu qorsheynayo in si rasmi ah u shaaciyo guddiga doorashooyinka maamulkaasi oo maalmihii dambe la filayay in si rasmi ah loo magacaabo balse siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada Jubbaland waxa ay sheegayeen in ujeedka Axmed Madoobe uu ka lahaa isla markaana dib loogu dhigay guddiga doorashooyinka ay ahayd sidii marka hore uu la kulmi lahaa xildhibaanada labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala deegaanadiisa kadibna uu soo saaro guddi doorasho oo shaqadooda si rasmi ah u bilaabo tani waxay noqonaysaa in xukuumadda Xasan Sheekh ay ku hungowday in guud ahaanba ay maamusho ama gacanta ay u soo gasho xildhibaanada labada aqal ku matala deegaanada Puntland ka hor inta aysan bixin waxay si rasmi ah u sheegeen inay gaari doonaan magaalada Kismaayo isla markaana ay ka qayb gali doonaan shirka wada tashiga halkaasi loogu yeeray balse maanta ayay si rasmi ah u dhabooday waxayna noqonaysaa guul kale oo Axmed Madoobe uu gaaray haddii Madoobe xildhibaanadan si rasmi ah u shaacin lahaayeen inaysan qayb ka noqon doonin in Kismaayo ay ugu tagaan waxay noqon lahayd in Xasan Sheekh iyo sidoo kale Xamza ay guul ka gaaraan Axmed Madoobe balse cabsida ugu badan ee xildhibaanada qabaan ayaa waxa ay tahay sida dadka oo dorso siyaasadda ay sheegayaan haddii ay diidaan in shirka ay ka qayb galaan waxa suuragal noqon karta in 2026 ay waayaan kuraasta Axmed Madoobe oo Kismaayo u xirantahay isla markaana xildhibaanada uu doono isaga halka uu ka keeno ayaa sababtay in aysan jirin cid ka hortimaada dhamaantoodna ay si cad u sheegeen in halkaasi ay tagayaan waxaana suuragal ah in daqiiqadaha soo aadan Axmed Madoobe uu ku dhawaaqo guddigiisa doorashada iyo sidoo kale in magaaladaasiba uu ka bilaabo ololihiisa iyo sidoo kale in mar kale kursiga uu ku soo laabto haddaba daawade adiga siday kula tahay in mar kale Axmed Madoobe markiisa afraad uu kursiga ku soo laabto